wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Awdal oo maalmihii u dambeysay waday dadaalo kor loogu qaadayo bilicda iyo tayeynta waxbarashada dugsiyada ayaa waxa uu maanta gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal Sheekh Cismaan Ciise oo kormeeray dhismaha deyrka dugsiga Aadan Isaaq ee ku yaala magaalada Boorama kaasoo wasaaradda waxbarashadu dayactir ku samaysay waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq Xasan Heebaan isagoona uga mahad celiyay sida weyn ee wasaaradda waxbarashadu uga qayb qaadatay dayactirka deyrkani dhismaha deyrka dugsiga sare Aadan Isaaq xaqiiqatan oo aad u fool xuma dumayay muddo badanna isagoo barqabiya dhisnaa waxaynu kulay maanta inoo bilaabmay toddobaadkan gudihiisii in la talbiiso lana qurxiyo deyrka dugsiga sare Aadan Isaaq waxa xaqiiqatan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa wasaaradda waxbarashada oo gudoomiyaha gobolka maanta wakiil nooga yahay dadaal badanna nala galay inuu nagala qayb qaato dhismaha dugsiga deyrkiisa inta kadib waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Cismaan Ciise waxaana uu tilmaamay inay ka wasaaradahan ka go'an tahay sanadkan sidii ay u soo saari lahaayeen bilicda dugsiyada iyo kor u qaadida tayada waxbarashada waxaanu joognaa waa dugsigii sare ee Aadan Isaaq dugsigan oo deyrkiisu marka hore dumayay inaan dayactir ku sameeyno qurxino ka wasaaradahan waxa naga go'an in dugsiyada dawladdu noqdaan kuwa bilic leh aqoonna taalo iyo ujeedadeedu tahay waxaan aad uga mahad celinaynaa hawsha markaan aragnay wasaaradda dhexe la tashaday in laga qayb qaato aan aad uga mahad celinay wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cismaan Jaamac Aadan wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed oo dhamaantood markaan hawsha iyo barnaamijkii ay ku qanceen iyaguna qaybtii inaan iskuuladaasi si loo dayactiri lahaa qaybtooda qaatay diyaarna waa in waxbarasho laga qabto kanun maaha insha Allah waxaan rajaynaynaa dugsiga sare Sheekh Ali Jawhar waxa isna diyaarsaday inuu hawshiisa bilaabo deyrka laftigiisa oo qaybtiisa qaato oo contribution ka ay diyaarsadeen insha Allah isna dhawaan la bilaabi doono marka sanadka waxa naga go'an in bilicda dugsiyada iyo kor u qaadida tayada waxbarashada waa isla socdaan insha Allah maanta wali shaqadii baa socota laakiin waxaan ugu talagalnay in macal ranjiintii iyo qurxintiisa oo dhameystiran iskuulkaasi la dhameystiro inta kadib gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Sheekh Cismaan Ciise ayaa xarunta wasaaradda ee magaalada Boorama ku soo bandhigay gaari bas ah oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan kormeerayaasha dugsiyada degmada Boorama si ay u dabagalaan hanaanka wax dhigista dugsiyadaasi baskan aad arkayso waxa baska gobol ahaan isku tashanay ujeedadan kala hayna ahayd sidii tayada waxbarashada kor loogu qaadi lahaa una u adeegi lahaa kormeerayaasha ama dabagalka dugsiyada ku haya ee degmada Boorama maadaama iskuuladii bateen waxaan u baahanay gaari wada qaadi kara kormeerayaasha hal marna intuu soo wada dhigo hadhowna hal mar soo wada rawaxiya todobada subaxnimo inuu qaado 12 barkana uu soo rawaxiyo xaafadihii geeyo si kormeerkana isna loo qiimeeyo tayada waxbarashada kor u qaadanto waxaan aad uga mahad celinaa wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cismaan Jaamac Aadan iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud ee Axmed Abakar oo dhamaantood markan qorshahan la nimidna ka gobol ahaan iyaguna qaybtoodii ku daray waana alxamdulillah hawshu way noo hirgashay shaqadii maanta bilaabaya halkan tababarkii dugsiga kormeerka iyo maamulayaasha iyo socda waxaayoo dhan waxa weyn sidii loo tayeyn lahaa ardayda wax baranaysa ee gobolka Awdal insha Allah waxaan rajaynayaa inay wax badan ka mid dhalaan inta kadib waxa halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo madashaasi goobjoog ka ahaa isagoona tilmaamay inay tallaabadani tahay mid ku dayasho mudan sidoo kalena sheegay inay dawlad hoose ahaan ka qayb qaadan doonaan wax walba wanaagsan laga deyn jiray in laga daydo runtii sida isku tashadeen ay waxoogii wax uga soo iibsadeen iyagoo wasaaraddu ay ku garab taagan tahay waa idin mahadnaqaynaa waan ku mahadsantiin annaguna de kulley waan idin baritaali jirnay waxay noqon doontaa xagga shidaalka ilaa gaariga kaliya socon maaye in bal xagga shidaalka annaguna waxaan ku caawin karno aan ku caawino insha Allah duleeda Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama